Akhrisku waa nafaqada la siiyo maskaxda ibni'aadanka. Akhrisku wuxuu ballaariyaa garaadka qofka. Haddii cuntadu quudiso jirka, akhriskuna wuxuu kobciyaa fahamka. Akhrisku wuu ku horumarinayaa wuxuuna ka caawinayaa inaad gaartid guulo badan oo aad ku haminaysay. Waxaad kaga dhuuman kartaa walwalka iyo dhibaatada inagu lamaan. Buugaad akhriso ayaa waxa uu ku ilowsiinayaa wixii ku haystay oo kuu sawirayaa duni kale oo xasiloon oo aad ku raaxaysato. Akhrisku waxa uu ku siinayaa macluumaad badan oo aad kaga jawaabtid duruufaha nololeed ee ku haysta. Waxa uu ku siinayaa fikrado cusub oo aad kaga baxdid duruufaha kolba ku haysta. Waxaad ka helaysaa caqli iyo marti cusub oo aad wax ku abuurtid. Buugta waxaa ku kaydsan afkaaro iyo aqoono wixii dunida soo maray. Akhrisku waxa uu suuragal ka dhigaa waxyaabo aan suuragal ahayn. Waxa uu kuu fududeynayaa qabashada waxyaabo aad lahayd suuragal maaha ama aan caqligaaga soo galin. Maamaha Ingiriisi oo dhahaysa adiga oo buug fiican akhriya waxay la mid tahay sidii adiga oo dib u qoray buugaasi. Haa, waa run. Haddii aad buugaasi dhuuxday oo aad si fiican u fahantay xigmadiisa, miyaadan lahayn aqoontii uu lahaa qoraagaasi, adigoo ilaalinaya xuquuqda qoraaga oo aanad sheegan aqoontii aad ka soo daalacatay. Mid kalena waxay leedahay haddii aad akhridid buugaag fiican, waxay la mid tahay adigoo la dooday mufakiriintii iyo aqoon-yahanadii dunida soo maray. Haa, iyana waa run. Akhristuhu waa sidii qof isku dayaya inuu la sheekaysto oo xal wareysto mufakiriintii iyo aqoon-yahanadii dunida soo martay, kuwii dhintay iyo kuwa noolba. Cilmi baaris laga sameeyay dadkii caqliga iyo aqoonta badnaa ee soo maray dunida ayaa waxaa lagu ogaaday inay hal shay ka sinnaayeen oo ahayd joogtaynta akhriska. Waxaa la isku raacsan yahay in qofba qofka uu ka akhris badan yahay uu ka aqoon sareeyo. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe dheh. Haddii muuqaalku ku cajabiyay, like saar. Wixii fikradaada ah inoogu soo gudbi qaybta commentiga.